filimkan wuxuu ka bilowdanaya gabadha yar oo dhaho Sofia waxaana iyadii qoyskeeda u soo guuraan keenta dhexdeeda maadaama waa baheed yahay ninka keenta ilaalinaya Sofia gebi ahaan kuma faraxsano meeshan ay maadiyadii qoyskoodu laakiin waxa arkaan in keenta ku reegsan tahay haro yar iyagu aad uga hela qoysku harada ku reegsan keenta Sofia way faraxdaa maadaama ay jeceshahay inay ag degto meelaha haradu ka ag dhowdahay waxaana bilowbaysaa inay keenta hore ugu sii socoto si ay u soo daawato waxaana aragtaa in walaalaheed soo daba raacayaan waxaana bilowbaysaa inay ka baxsato ugu dambeyn ku soo guulaysataa waxaana dul timaadaa dhagaxan si ay ugu daawato quruxda harada leedahay markii say u dul istaagtana waxaa la siibanaya dhagaxa waxaana ku dhex dhacdaa harada markii dhacaysana waxay madaxa ka jirtaa dhagaxa wayna miir daboolmaysaa kadib ugu dambeyn way soo kacdaa idoona dareemaysaa harada xaggeeda hoose inay wax ka soo riixayaan si ay biyaha xaggeeda sare u tagto ugu dambeynna way ka soo baxdaa waxaan aragnaa in waalidkeeda uga sheekeynayso sida harada ugu dhacday iyadoona u sheegaysa in marka dambe ay keligeeda socota ay iska taxadiri doonto aabaheed bedro iyo hooyada iris waxay maalintii xigti go'aansataan in jiga ku soo qaataan harada agteeda iris ayaa dareentaa qiiqa ka soo baxaya keenta dhexdeeda bedrona wuxuu biloobaa inuu raadiyo meeshu qiiqu ka imaanayo kadib wuxuu imaada saddexdan qof oo ah rafaa'il iyo walaalkii iyo geyl Sofiyana way ka heshaa geyl maalintii xigtina Sofia waxay timaadaa iskuulka maalinteeda ugu horreysay waxaana la keenaa fasalka geyl kadib Sofia waxay saaxiibaan gabadhana loo dhaho Diana markay iskuulka ka soo baxaanna waxay arkaan hilaac ka imaanaya meel iyagoo go'aansanaya inay soo eegaan meeshu ka imaanaya hilaacu kadib waxay arkaan rafaa'il oo gaadhigiisa wata wayna ka dhuumanayaan waxaana galaan warshada hore lagu samayn jiray biraha kadib Sofia waxay aragtaa geed weyn oo ku dhex yaala warshada wana la yaabaysa Sofia markay aragto geedka weyn oo ku dhex yaala warshada dhexdeeda waxaan isweydiinaysaa maxay tahay sababta geedka loo jiri waayey markii u dhawaatana waxaba geed ka soo baxa dab Sofina waxay ku xaniintaa goobtii Diana waxay u soo aragtaa si ay u hesho cid caawisa laakiin waxaan aragnaa in foostooyinka biyuhu dhaqdhaqaaqayaan ugu dambeynna waxaan aragnaa in dabkii damay habeennimadina waxaan aragnaa warshada Sofia joogtay inay joogaanba rafaa'il iyo walaalihii rafaa'ilna walaalihii wuxuu sheegaa inuu qorshoodu dhammaad ku dhow yahay waxaan aragnaa maalinta xigtay Diana inaanay iloogan weli wixii dhacay Sofina waxay ku tiraahdaa sidoo awooday inaad dhaqdhaqaajiso biyaha foostooyinka iyadoona arrinka la yaaban Diana Sofina waxay go'aansanaysaa in gebi ahaanba qariso arrinka dhacay maadaama macalliyadu garanayn waxa dhacay waxaan aragnaa inay jimcis ku qaadanayaan beerta Sofia Diana waxaana u timaada gabadha lagu magacaabo Emilia iyadoona u sheegta inay ku marti qaadayso gurigeeda iyadoona ku tiraahdaa waxaan kaa caawinaya si aad u samaysan lahayd saaxiibo cusub laakiin Sofia ka diida arrinka Emiliana ku adkaynaysa arrinkaas kadib Sofia waxay ku tiraahdaa saaxiibtii Diana hore waa inay soo raacdaa kadib Emilia waxay u sheegtaa inuu xitaa imaanayo geel oo ay ku casuumayso gurigeeda markii arrinka maqasho Sofia shucuurteeda ayaa kor u kacaysa waxaan isku dayaysaa in shucuurteeda xakamayso inta shucuurteeda xakamaynaysana waxaan aragnaa in biyaha ceelka ku jira ay dhaqdhaqaaqayaanba markii Emilia eegtana waxaa ku soo daataa biyihii ceelka kadib waxaan aragnaa Sofia waalidkeeda baraysaa Diana intaas kadibna waxay tagaan qolka Sofia Diana waxay ogaataa inay Sofia jacayl u qaaday geel Sofia waxay akhrinaysaa buug ku saabsan sifooyinka biyaha waxaana la yaabantay sababta ay u heshay awoodda ay ku xakamin karto biyaha waxaanu aragnaa Sofia oo tijaabinaysa awooddeeda marka bilowda tijaabadana way miir dabaalantaa kadib habeennimadii ay aragtaa dhibic biyaha oo hor taagan waxayna inaguna ogaanaa inay leedahay awood ay biyaha ku xakamin karto taasoo iyadana u rumaysa shakiga ay ka qabtay ee ahayd in biyaha ay xakamayso waxaana aragnaa wiilkan lagu magacaabo Toko iyo Sofia raba in doonay ka kaxaysan harada kadib Toko wuxuu ku dhacaa harada Sofiana isla markiiba ay ku boodaa taasoona soo badbaadisa isaga Sofiana waxa arkay geel isaguna maseer dareemaya kaas isaguna jacayl u qaaday Sofia waxaana ku kulmaan harada agteeda waxaana ogaadaa inay Sofia kor ay degnaan jireen Atlantikada intaanay u soo guurin Rio Vivo oo ah xaggi degan yihiin intaas kadibna waxay maadaa Lab oo ah walaalka Sofia kamana hela geel waxaanu ku dhahaa iska bax Sofia familkeedo dhanna aad ayuu ilaaliyaa kadib waxaan aragnaa maalintii xigtay inuu Lab shaqo raadsanayo isagoo u taga Rafaa'il kaasoo ogaaday inuu shaqaalo qoranayo baarkiisa oo dhawaan furmaya waxaanu ogaanaa Rafaa'il inuu leeyahay awoodda dalaacada heerkulka qofka waxaana heerkulkiisa dalaaca Lab waxaan weydiiyaa arrimo qoyskooda ku saabsan markuu rabay inuu sheegana waxa soo galaya odaygan isagoo u sheegay Rafaa'il inay timi alaabtii baarku shaqadii Rafaa'il hayana uu joojiyaa kadib heerkulka Lab wadagaya Rafaa'ilna wuxuu sheegaa inuu shaqaaleysiiyey kadib waxaan aragnaa Rafaa'il oo walaalihii u sheegaya inuu ka dhex raadinayo gabadha rabaan taasoo walaalihii u sheego inuu dadka ka soo qayb galaya uu isticmaalo awoodiisa si uu helo qofku raadinayo sababtaa qofkaas waa qof kaliya ee awooda inuu Rafaa'il ka hor tagto waxaan aragnaa Sofia waalidku ka diidan yihiin inay tagto xafladda baarka Sofiana waa baxsanaysaa idana daaqada ka soo dhacaysa intii baxsiga ku jirtayna waxa aragtaa walaashadooda rabtay yadna inay tagto xafladda inay soo raacayaan ugu dambeynna way imaadaan waxaana Sofia aragtaa walaalkeedoo ka shaqaynaya baarka wayna la yaabaysaa kadib waxay imaada geel isagoo geeyay meel khaas ah xagaas ay ku ciyaarayaan labadooduba kadib Sofia waxay damacaysaa inay dhukanto geel laakiin geel uu ka leexdaa shumiska Sofiana masaakiintu waxay dareentaa in lagu adkeeyay kadib waxaa aragnaa walaalaha oo masraxa fuushan waxaana doortaan inuu heesto Sofia taasoo loo dhiibayo mikrofoonka si ay u heesto kadib waxaa aragnaa in Rafaa'il uu qabsanayo shaqadiisii taasoo ahayd in heerkulka dadka xafladda jooga uu sare u qaado si uu ogaado qofku raadinayo markuu bilaabmana waxaan aragnaa in meeshii biyaha is qabsadeen iyona xataa dhalooyinka cabitaanku ay si xawliya u soo baxayaan waxaana aragnaa geel oo xanuun dareemaya markii biyuhu ku daateen waanu ka cararaya goobta waxaana aragtaa Falok oo ah walaasha Sofia
kadib way soo daba raacaysaa waxaana aragtaa inuu geel leeyahay awood weyn wayna cabsataa markay meesha ka carris tirahdana waxay aragtaa rafaayil oo ka dambeeya waxaanu isticmaalaya awooddiisa kadib waxayma aragnaa soofiya oo walaalaheed u sheegaysa inay leedahay awood ay ku xakamin karto biyaha taasoo jeclaatay in la wadaagta walaalaheed awoodda ay leedahay waxay u sheegtaa in waalidkooda aanay u sheegin oo ay afkooga iska haystaan waxayna aragnaaba inay Flog la socoto waxayna ogaanaa inaan waxba ka soo gaadhin rafaayil iyo walaalaheed kadib maalintii xigtay soofiya Flog waalidkooda saayid ayuu canaananayay kadib baxsadka ay baxsadaan ee aanay waalidkooda ugu oggolayn inay xafladda tagaan maalintii xigtayna waxaa aragnaa soofiya oo la joogta ciidada Toko taasoo ah qof cilmi nafsiga yaqaan kadib waxaa aragnaa Flog walaalkeed u sheegaysa wixii xafladda ka dhacay waxaana ku tiraahdaa geeli walaalihii waxay leeyihiin awood weyn kadib waxaa aragnaa gabadha Niyaa lagu magacaabo inay Soofiya tusiso awooddeeda taasoo Niyaana la yaabto awoodda ay leedahay Soofiya kadib waxaa aragnaa walaalihii waalidka u sheegaya awoodda ay leedahay Soofiya dhanka kale geelina wuxuu arkaa Soofiya buug ay kaga tagtay baarka kaasoo ogaada inay Soofiya tahay qofku raadinaya rafaayil waxaanu biloobay inuu buugga u isticmaalo awooddiisa si uu masaxo si aanay walaalihii u ogaan inay tahay gabadha raadinaya Soofiya kadib waxaa aragnaa waalidku inuu sheegay ciyaalkooda in 15 sano ka hor ay joogi jireen Rio Fifo halkaasoo ku korin jireen Soofiya waxayna ogaanaa inay awooddan uga timi deegaankan waxaana waalidkooda u sheegaan in gabadha la dhaho Niyaa ay u geenayaan Soofiya kadibna waxa guriga timaada Soofiya waxayna ogaataa in waalidkeeda ogaadeen arrinta qarinaysay kadib maalintii xigtay waxay u geeyaan Niyaana waxa u sheegtaa inay khatar badan ku jirto Soofiya iyadoo la rabo inay barato sidii u kantarooli lahayd awooddeeda si ay ula tacaasho dhibaatooyinka soo socda kadib Badriye Irisna gabadhoodu way macasalaameeyaan Niyaana waxay bilaabaysaa inay Soofiya barto si ay u xakamayso shucuurteeda maadaama ay ku xidhan tahay awooddeedu kadib dhowr maalmood oo ku jirtay tababar hadda waxay la qabsatay sidii u xakamayn lahayd awooddeeda biyaha kadib waxaa aragnaa Soofiya oo dhex joogta kaynta waxaanay sugaysay walaalkeed waxayna aragnaa walaalkeed inay soo weerareen Rafaayil iyo walaalkii Meel iyagoo isticmaala awooddooda kadib waxaa aragnaa in waalidkoodu ay raadinayaan ciyaalkoodii kadib waxay ku noqdaan guriga iyagoo arkaa laabo gacanta ka dhawacan kadib Niyaa ayaa aragnaa oo ogaataa inay Soofiya familkeedu khatar ay ku jiraan waxayna timaada baarka iska leeyihiin Rafaayil iyo waxayna chance ku heshaa inay gacantiisa taabato Meel iyadoo ka dhex ogaata gacantiisa inuu leeyahay awoodda dabka isla markiiba arrinkaa waxay la wadaagtaa waalidka Soofiya kuwaas ay u sheegto inay isaga tagaan Rio Fifo maadaama Rafaayil iyo walaalihii ay leeyihiin awood saa'ida Soofiyana waxay aragtaa waalidkeeda oo raba inay guuraan Soofiyana ma rabto inay guurto waxaana la hadashaa saaxiibada Diana si ay u caawiso kadib waxaa aragnaa in Diana iyo Lev ay shuminayaan taasoo ay aragto Soofiya iyadoo aad ula yaabta waxay samaynayaan kadib waxaa aragnaa inay saaxiibada dhar ka bedelatay manay dareemin waalidkeedu Soofiyana waxay rabtaa inay soo ogaato waxay waalidkeedu u sheegayaan inuu run tahay waxayna tagtaa walaalaha iyagoo awooddooda tusa kuwaas awooddooda dab ku hareeraya Soofiya waxaana Soofiya bilowaysaa inay awooddooda soo kiciso laakiin ma kiciso sababtoo ah awooddeedu ka deeqaysan tahay awoodda walaalaha laakiin waxa ka soo gaadhay Niyaa taasoo joojisa awoodda walaalaha Faylna wuxuu doonaa inuu qabto Soofiya laakiin waxa uu isticmaashaa awooddeeda iyadoona tuurta kadib Soofiya Niyaa way ka soo cararaan goobtii iyagoona ku dhumanaya godkan waxaana aragnaa Niyaa uu sheegaysa Soofiya hooyadeedina mar hore dhimatay waxaana ogaanay in waalid kale ay dhaleen Soofiya waxaana aragnaa Rafaayil oo odayga weydiinaya su'aal kaasoo Rafaayil ogaada inuu odaygan rabo inuu tirada dhan u sheego awoodda uu leeyahay Rafaayilna uu xanaaqa oo wuxuu isticmaalaa awooddiisa dabka kadibna geel ayaa ka qabanaya intaanu odayga dhimanna geel wuxuu sheegaa inuu isaga fogaado walaalihii maadaama uu isagu ka fiican yahay iyaga marka ay xaqiiqda ogaato Soofiya waxay bilowdaa inay waddada iska soo qaado waxayna aragtaa geel oo sagna hortaagan waa inay soo raacaan habeennimadii markay gaadhayna waxay jebinayaan bakhaarkan duugoobay kuwaasoo gelaya Soofiya markale waxay isku dayaysaa inay shumiso geel waana ku guulaysataa maalintii xigtay waxaa raadinayay Iris Bedro Niyana waxay sare u qaadaa awoodda ay leedahay Iris taasoo ah inay wax uriso taasoo doonaysa inay Soofiya ogaato meesha joogto kadibna waxaa aragnaa in Soofiya Diana ay u afduuban yihiin Rafaayil dhaga kale intay raadinayeen waalidkoogu Bedro waxaa soo weerara Rafaayil kaasoo isticmaala awooddiisa dabka laakiin Bedro wuxuu awoodaa in iska kala tuuro Rafaayil waanu mirdaboolmayaa markuu iska tuuro kadib waxaa aragnaa Meel oo soo weeraray Flog kaasoo isticmaala awooddiisa dabka laakiin waxaan aragnaa in Flogna ay leedahay awood taasoo cidiya seef la soo baxaysa oo ka taagaysa isagana aad u xanuunsada kadibna waxaa aragnaa geel oo imaanaya Soofiya isagoo xadhiga ka fura Soofiyana waxay u sheegtay geel inuu Diana geeyo meel seef ah iyaduna waxay u soo carartay qoyskeeda waxaana aragtaa qoyskeeda oo awoodda dabka lagu weerarayo iyadna waxay kaga difaacdaa awooddeeda biyaha kadib Bedro ayaa u dhawaada Rafaayil si wax uga qabto laakiin mar labaad wuxuu gacmaha u saaraa laabta isagoo mirdaboolma kadib Soofiya way xanaaqdaa iyaduna aan aragnaa in biyihii caleemaha iyo kuwa dhulkuba ay soo baxeen kadib iyaguna waxay isku dayaan inay isticmaalaan awooddooda dabka laakiin Soofiya waxay ku baabiisaa awooddeeda biyaha xaggaas ay ku baabaayaan Rafaayil iyo walaalkiiba filimkeenina wuxuu ku soo dhamaadaa xaggaas